dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo maanta aan wax ka weydiiyay sida ay u arkaan is-hortaagga ay xukuumadda Soomaaliland ku sameysay ugaaska beelaha Gadabuursi ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi ayaa waxa ay ka dhadhiyeen falkii lagu la kacay ugaaska oo ay sheegeen inuu ahayn ugaasku nin siyaasi ah balse uu yahay ugaas dhaqameed shacabka ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo si cadho leh uga hadlayay is-hortaaggii lagu sameeyay ugaaska beelaha Gadabuursi ugaas Cabdirashiid ayaa waxay sidoo kale sheegeen inayna meesha jirin Soomaaliland la wada leeyahay hadii madaxweyne Muuse Biixina uu yimaado magaalada Boorama iyo gobolka Awdal ay xabad ugu jawaabi doonaan waa siday hadalka u dhigeen waxana hadaladoodii kamid ahaa waxay meelay magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal ugaaska beelaha Samaroon ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi asaate xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hor istaagtay inuu gobolka soo galo bal arintaasi sidaad aragtay maadaama tay bulshada ku dhaqan gobolka Awdal horta arinta haddaan ka hadlo aragtideeda رأي هانتيدا وأرين خلاص الله لك عاي جالس برشيد وجالس دادو دمان شعبوينها قبل كأول دلير ويل وحكرت دمان وحي عرق ليسي فلك جالس الله لك عاي أد بنا نروحنا حي حكومة الصومال لأنه وحي نعديسي هل كان كتاجنا مركاني كالصومال لأن دلير كسوجي مستقبل واحد جرا معها صومال لأن وقتشان دونا وجالس كنا بقى ونوجي هذا دمان دلير تجدي بوسي وإنا لأجيبه si aan umaduna ay wada shataa ayaheega dhamaan mustaqbalka soo socda 50 sano 100 sano dambe waa inuu Gadabuursi ka tashadaa wax Soomaaliland inoo yaala ama laga rajo sugaa ma jiro ugaaskeeni baa baroon la dhacay sidii carruurnimada waxay hayd inaan gacan uga jawaabno ugaasku isaga joojiyay waana loo jawaabi karay 40 al culana garaacal joogta Gadabuursi dhamaan inta joogta Boorama iyo meel kasta uu joogo waa inuu isku duubnaadaa wax dhadhaar la yiraahdaa ma jiro doorasho wax ka weyn dar afar doorashadan lagu hadlayaa waa qanjir laynoo tuuray qanjirna wax lagu dagaalamo maaha dhulkii Gadabuursi lahaa gobolka Awdal min loo yacado ilaa Ceel Sheekh waxa ka taagan muran marka rag dhulkoogii lagu doodaya inay fandhaal yaro Hargeysa yaala ku doodaan waa ceeb ugaas waxaan baaq u dirayaa ugaas waxaan u jeedinayaa ugaas waan ku soo ajiibaynaa halka joogto waan kugu imanaynaa Boorama hadaad maanta soo gali weyday anaga awood kugu soo galinayna anagoo gobolka Awdal awood waan ku qabsan doonaa insha Allah laakiin Gadabuursi waxaan ka kaliya laga rabaa inaanu midowno cadow baan leenahay cadowgeena aanu midowno baalti ka dambeysay la celiyo waxa hadlay duqa degmada Boorama iyo barasaaka gobolka Awdal oo iyaguna si jees ah uga hadlay celinta ugaaska balaanintaas maxaa kaaga baxay haddaan horta ku horeeyo barasaabka waa la wada yaqaanaa afar jeeblo wuxuu yahay isaga ku dheeraan maayo waa mangaab maayarka barasaabkan cusub ee la keenay gobolka ninkan barasaabka cusub isagna wuxuu yahay inuu na tusay ceebna ma aha qofka fikradiisa haduu ka hadlo sida uga hadlayna ma aha si mas'uuliyadnimo ugaas Cabdirashiid halku yaala inaga dhignay cidna eedayn mayno idoorna waa rag tashaday Gadabuursi hatta shadaadu wax doonayo cidna yaanu eedayn isaaq waa niman tashaday ayoogana ka tashaday hebel baa celiyay ma waxay taagan tahay Gadabuursi maxaa tahay inaan ismuujino waxaan nahayna muujino waa inaga sharafteena ku ayay ku soo baxaysaa ugaaskuna waa astaanta waa loogada Gadabuursi astaanteeni baa dhulka lagu tuuray ma aha inaan qof shakhsiyaad ka hadalno Gadabuursi waxa looga baahan yahay ka yar iyo ka weyn ba inay meel kaliya wada maraan ugaaskooga iyo wadankoogana qabsadaan wax Soomaaliland hadana reer baas kale Gadabuursi waxa uu dana Awdal state-kiisa inuu dhisto gobolkiisana calan gaar ka taagsado waxana waa ragina lamida xuduudda waan qabsan karnaa afkana ku dhufan karnaa haduu Gadabuursi dhalinyarta Boorama waxaan ugu baaqayaa Muuse Biixi haduu yimaado Boorama waa in xabad loogu jawaaba shiidna wax tari maayo rasaas waa in la qaataa dhiig waa in la tusaa iyadoo aragtay celintii lagu sameeyay ugaaska beelaha Samaroon horta waa ku dhawahay TV-gana magacaygu waa Axmed Maxamed hani ra'ay ahaantayda hadaan ka hadlo celinta ugaaska Samaroon ee la celiyay ugaas Cabdirashiid aad baan uga soo horjeedaa waayo waa wax dhaqana in siyaasad lagu celiyaa waa wax aad u qaldan Soomaaliland marka la eego waa beelo isku taga marka heshiis galay oo inay maamul iyo maxay heedeen nabadkooda noolaadaan taas waxay wiiqaysaa hadii ugaas beelaha kamida dib Soomaaliland celiso inta heshiiskii meesha ka baxo nabadgelyadii meesha ka baxdo is-aaminaadii meesha ka baxdo aadna uga soo horjeednaa in ugaaska saa loo galo dib lagu celiyo meesha ka yimid waxa hadlay barasaabka gobolka Awdal iyo duqa degmada Boorama oo iyaguna sheegay oo taageeray in ugaaska la celiyaa in ay sax ahayd bal arintayada sidaad aragtaa maxaa kaaga baxay horta marka xagga barasaabka iyo duqa magaalada aan eego iyagu kulli horta waa la haystayaal wax iyagu ay celin karaan ama ay soo gadin karaan ma jirto waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ogeyn ma sameyn karaan marka iyagu wax lagu yiri celiya
unba amarkii unbayna qaateen amarkii unbayna sameeyeen dib ugu celiyeen haddii loo eego caadi ahaanna wax iyaga wax sumcaddooda iyo maxay mustaqbalkooda dambana u fiican maaha waayo ugaasku siyaasi maaha maxay qof qas bilaabayo oo wax waxaynay maaha ugaasku waa ugaas beesha kamida waa ugaas maxay nabadoona waa ugaas haan u socday maxaha dhaqan ahaan dhaqan iyo siyaasadda waa sababta haysatay haddana ictiraaf baa la raadinaya iyo Soomaaliya sidan iyo siyaasad baa sidan ay loo kari lahayd weyn sababtaasi markii la isku daro maxay siyaasadda iyo dhaqanka markii la isdhex gasho horumar lama gaarayo waayo haddii siyaasadda dhaqanku kala duwan yihiin oo dhaqankiisa yahay oo nabadoonnimadiisa iyo amnigiisa iyo wada noolaanshaha ka shaqeeyo siyaasaduna sideeda ayo dadka horumar iyo wax u shaqeyso dalku uu horumarayaayo meel baa la gaaraya laakiin haddii la isdhex geliyo dhaqankii siyaasaddii maanta dhacaysa dhawaa waxay minay magaalada Boorama ugaaska beelaha Samaroon ugaas Cabdirashiid ugaas Doodi hase ahaatee xukuumadda Soomaaliland ayaa hor istaagtay inuu gobolka soo galana waa loo diiday dhibaatana waxay ka dhacday xuduudka halku Soomaaliland bal arrintaas aad u aragtaa waxa weeye dawladda Soomaaliland in la yiraahdo waa reer inta kale waa markhaati shan qowmiyadood baana taalo oo waa 4 iyo badh sida Soomaaliya baa tahay reer baa taliya waa reer dawladdu tii baa tidiyuuna noo iibinin waa beelaha gale buursiyaan haybtoocnee sidaa baa lagu celiyey wax kalena maaha كور أركسا صدق أركتا ما تكسر تدين وقاسك العليو. قلدنت هاي تاسي أو وحلينا هاي صومالي لا وحلينا نجرو قبل كأول ما كوسم إني كرتوني دي وكلام نقول. دوان واحد مقالة بورمي قبل كيماني وقاسك بلا سمرون وقاس عبدالرشيد وقاس روبل وقاس دودي هساعة حكومة الصومال يا ريت تكسر تستي وحنا لقى عليه حدود كجريعون هل كاسو عرين هذا فرحن أي كذا عليه. بالمركو أرسس هذا أركتا علنتي لقوا سمي وقاسك بلا سمرون. بسم الله الرحمن الرحيم أرنكاس وحنور كانوا أرن آذو فالحن دولة ومركز ربطة هدف وسعته مال إن جاد ربطة إن دولة لا قنصدا وأدوية لا قنصدان وسعته ربطة وحدنا الدجال كوه عقاش شودي ضدكي عقلك ومدها ضدكي نبضونا لها dadkii ugaasyada ahaa dagaal ku haysa oo ma aragtay hub la hor joogsanayso la hor taagan waa nasiib daran leeyahay nasiib daro aad ma aragtay u weeyaan ugaasku wuxuu ahaa waxa weeyaan waa nin ugaaskii dhanaay ma aragtay gobolkan Awdal ama ummadda ku nool gobolka Awdal waxa uu socdayna ما أهين سدا أي شيئين برساب كيو ما دركت ضد بدن أو واحد ليان أو ما دركت مرمرسية ضدنا ما أهين وحقو سعودي ضد كيس اللبا وقيب سنة كلا تاجن إن أو مذايو أو إسكو كانوا أو ما دركت وده هذا السيو أو قعمها إسكو صاروا مذايو ما دام أو يهد الله دي جود سراء ما دركت ضد كني كنول قبل كعودة أو يهي أرنكاس بوسعدي هدف كوجاس كوسعدي تابع هاد مر لبعض بنكو عليا هدف كوجاس كوسعدي وحي أحد إن أو ضد كيسة لبض أوكل قيبسن إنه مذايو أو سكو كانوا أو لغة سكو جدوجو أو قعمها وسكو صاروا هدف كاس أيو سعودي وجاسكو سيدا ضد كمرمر سيدا ما دركت أوضاع دانية أيليه دين راعي لها ما أهين هدف كوجاسكو كابوها عيد كسته أو تاكسو هرجيدي أو ربطة إن أي ضدكني قبل كان كنا ولا أي كلا قيب سنادان هذه الجار يا وجاسك ما دركتي هرجوك ستي سأين أي هدف كيساس أو نودة بوبين أو نوسكو كينين عيد ربطي إن إساس أو كلا قيب سنادان هذه الجار يا ما دركتي وجاسك هرجوك ستي وحنو أرخضني ملان وجاسك ما شو رشيل لي اليد بلوغي وضدني ملان أن رجع واحد كده مينا وأفر قف تران قاري أو فتش يريا ومقرن سمية أو لالوش يريا وحقاتي وجاس كوع سعودي دد كيسة إنه متقنع يسكو كانوا ومذيو دقول كيسنا وكسر سعودي لكن وضدني ملان أيضا غير شفته هالكن استعجي
awdal intay leegto dhan lagu hortagi kari waayey waa dadnimo la'aan wey boorama ugaaska beelaha samaroon ugaas cabdirashiid ugaas rooblo ugaastoodii hasaatee xukuumadda somalilan ayaa diiday xuduudkana ciidan dhigtay halkaasaana laga celiyey bal arrintaas aad aragtaa maadaama tahay shacbigii mid ka mid a shacbigii ku dhaqnaa magaalada boorama bismillahi raxmaan raxiim waxaan u arkaa su-aashaasi horta dawlad wax la idhaha ma jira dawladdu waa dawlad khayreed oo isaaq nin la idhaha baa iska leh dadkanna waa beela u haysto oo gumaystay 1990 ilaa maanta dadku waa dad la haysto una dad awood loo maaha ugaasku ma aha nin dagaal nin beeleed oo qadar dhaqameed waxa maaha waa sandanad guud oo laga midoobay oo nabadeed wey marka ninka danta lihi wuxuu doonayaa maalinba sidii isaga dantiisa inuu dadka u maalo waxaana gacantuba ku haystaa isagaa iska leh isagoo unbaa u tashaday halkan tii lagu dhisay loo midaysnaaye shalay wax laysku weydiinayay maaha waa xoog lagugu haysto waxaan lagu celiyey ugaasku mana aha waxa uu dadweynuhu ka midaysan yahay dadkana yari iyo weyn way ka cadhagelisay rag iyo dumar way ka cadhagelisay door baa la yidhaha nimankan dawladda iskale dadkan iyagaa gumaysta iska haysta inay waxba ahayn baa kuu sheegayaan ku tusayaan kuuna sheegayaan aad arkaysaana adugu markaa cid kastoo dhiiglihi waxaan way damiir gelinaysaa waxaanan u aragnaa wax weyn oo qalad dhacay oo dadnimo la'aan lagu ogaaday marka gudaha lagu ogaado ma waxaan doona lagugu samaynay yaa naagaha dhinacan loo dhidiyo dhinacba diidayn gabay baa idhaa naagaha dhankaan loo didiyo dhinacba diidayn didigashada lagu ogaaday dhiigga caadada yacnaa waxa lagu ogaaday inaan waxba ahayn horta ugaasku waa ugaas dhaqan ma aha ugaas siyaasadeed dawladduna ma ay dooran ugaaskee beel baa dooratay oo ugaaskaygu yahay kulley celinta la celiyey in la siyaasadeeyo aad baan uga xumahay mana aha in siyaasad la geliyo waa ugaasku waa ugaas dhaqan anu saasaan aaminsanahay markaa siyaasadda hadduu xataa soo galafteeda dawladdu inay shirar ama si gaar ugaaska ugala hadashay ahayd laakiin in la celiyo oo siyaasad ahaan loo celiyo ma ogoli bismillaahi raxmaani raxiim horta waxaanu arkaa soomaalidu waxay tidhahdaan in haddii la dili ninbaa uus looga dhigaa waxa weeye dhaqanka iyo siyaasadda dawladduna waa kala labo markaana aragta ahaantayda haddaan ka dhiibto waxaan odhan lahaa ugaaskaasi dawladdu way ku gafteen cidda loo jeedaayna ma ahayn isaga ee sababtu waxay ku socotahay dee innagana dhimasho bay nagu tahay maadaama uu dee isagana xabaddu ku dhacday markaa waxaan odhan lahaa ugaaskaasi dee dadkiisiina waa lagu hor ceebeeyey dawladduna way ugu tala gashay waxan oo waxay ahayd si yacni eeg indhaha wax laga tuuraa qof walba hadduu indhihiisa dee ma garanaysaana ay laga hor joogsado dee waa indhad beel weeye waa Sakariya Cabdi Shafaarax Sakariya Saxane telefishinka caalamiga ee Horyaal TV magaalada Boorama